أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa Cantar Said Xuseen. waxaan soo wadnay casharadii aan ku baranayna Excel 2010ka. casharadaas oo ahaa casharo tixnaaynoo ah. casharkeena maanta waa casharkii shanaad. waxaan rabnaa inaan ku barano qodobo dhowr ah. waxyaalaha rabnay inaan ku barano casharkeena waxaa kamid ah sida loo kobiyeeyo isla markaasna loo jaro amba dib loogu soo celiyo wixii aan kobiyeynay ayaan rabnaa maanta inaan barano insha allahu tacaala. sidoo kale waxaan rabnaa inaan barano sida font loogu sameeyo, sida wax looga bedelo qoraalkaas wuxuu noqon karaa numbers ayuu noqon karaa, number ayuu noqon karaa, sidoo kale wuxuu noqon karaa array ayuu noqon karaa. maanta waxaan rabnaa marka qaybta hore formatka amba fontiga inaan barno oo ah text level formatka, sida qoraalada wax looga bedelo ayaan baranaynaa. cashirkaas marka waxaan si aadaan rabnaa markii inaan ugu sii fiirino isla markaasna aan ku barano wax loo yaqaano boldiga, oo ah in farta laga dhigo far madmadow zaa'ida laga dhigo amba far la arki kara laga dhigo. sidoo kale waxaan rabnaa inaan barano wax loo yaqaano italics, oo ah farta si aan u jijiifi lahayn wax meesha noogu qoran. okay, selka waxaan ku qori karnaa saa ogtahay ereyana waan ku qori karnaa, numberana waan ku qori karnaa. dabcan labadaba waxaan ka dhigi karnaa far jijiifta. sidoo kale waxaan rabnaa inaan ku barno sida aan uga dhigi lahayn waxa selkaan ku qornay mid hoosta ka xariiqan oo underline aan ugu sameyn. intaa kadibna waxaan rabnaa insha allahu tacaala in aan barano wax loo yaqaano sizeka amba cabirka selka waxaan ku qornay amba sida aan colorka aan uga bedeli lahayn. annagoo arki doono laba nuuc oo colorka aan ka bedeleyno, oo marna waxaa waaye ereyga amba xarfaha amba numberada meeshan aan selka ku qorna ayaan colorkiisa bedelaynaa, marna waxaan bedelaynaa colorka backgroundka amba meesha uu ku yaalo textigaas ayaan wax ka bedelaynaa. ugu dambeyntii waxaan rabnaa in aan barano wax loo yaqaano alignmentiga. meesha normally uu ka muuqdo xarfaha markaan qorno amba ereyo markaan qorno amba markii aan qorno number markaan qorno alignmentiga sidoo noqon karo. sidoo kale waxaan ku baran doonaa haddii ilaahay dhaho annaga sideen ugu sameyn karnaa alignment aan u baahannahay, oo ah dhinacaan rabna sidee aan uga soo muuji karnaa waxa aan selkaan ku qornay. haddaba haddii aan imaano excelka, saa ogtahay excelka dabcan wuxuu ka koobmaa cells ayuu ka koobmaa amba unugyo ayuu ka koobmaa. cell kastana wuxuu ka imaaday columnkii rowgii ayaa isjarayo, meeshaas ayuu cell ka imaaday. saan hore kugu soo sheegay haddaa u baahan tahay inaad cell wax ku qortid, dabcan waxaad sameynaysaa oo keliya waa type garaynaysaa adoo isticmaala keyboardka. markaad type garaysid oo qortid enter ayaa leedahay. dabcan cellka wax ayaa ku qortay. intaa kadib haddii aad u baahan tahay cell wax ku jiro in aad soo koobiyeysid oo aad cell kale ageysid amba meel kale ageysid, dabcan waxaa sameynaysaa waxaa isticmaalaysaa functionka andhehe wax loo yaqaano copy ayaa isticmaalaysaa. copyga dabcan home clipboardka home tabka clipboardka ayaa ka isticmaali kartaa oo meeshaas ayaa copy ku dhifan kartaa. amba selka ayaa left click ayaa leedahay, copy ayaa leedahay, amba waxaa isticmaali kartaa keyboard shortcut oo ah control c ayaa isticmaalaysaa. laakiin intaas waxaa ka muhiimsan in aad selka aad soo select garaysid ayaa ka muhiimsan. selkaas aa u baahan tahay inaad copyeysid, markii aad soo select garaysid ayaa isticmaalaysaa. dabcan aniga waxaa ii fud keyboard shortcutka oo ah control c. control c ayaa wuxuu yahay copy ayuu yahay. saa ujeedaan selkii wuxuu bilaabay in uu wax ka dhex wareego. haddaba meeshaa rabo markaan tago amba selkaa raba in aan waxaan soo koobiyey aan dhigo ayaa waxaan isticmaalayaa dabcan waxaan isticmaali karaa inaan home tabka inaan tago ayaa waxaan dhigi karaa past waa dhigi karaa, right click past waa isticmaali karaa, amba keyboard shortcut ayaa jira oo la isticmaali karo oo ah control v. control v ayaa wuxuu iga caawinayaa in aan xalaha wixii aan koobiyey aan selka u baahnahay aan dhigo. haddaba haddaan u baahanahay
for example in aan maxaa la dhahay aan cantarkan aan kad gareeyo amba meesha dhan aan ka qaado oo meel kale aan geeyo ha ahaadaan maxaa la dhahaye warqadan dhexdiisa ahaato amba warqad kale ahaato waxaan isticmaali karaa wax loo yaqaano cut ayaan isticmaali karaa amarkaas cut ayaan isticmaalayaa dabcan home tabka waa ujeedaan meeshan cut ayaa ku sawiran oo ah maqaskan ayaa wax lagu gooniyaa amba right click cut ayaan isticmaali karaa amba control x means waxa waa gooy waaye haddii aan u baahanahay sheet kale inaan keeno dabcan sheetkaan u baahanahay ayaan click ku siinayaa kabacdi ayaan waxaan isticmaalayaa control v dabcan koobiga iyo kadka markii aan rabo inaan pasti aan sameeyo control v ayaan isticmaalayaa oo taas ayay ka wada siman yihiin intaas haddaan uga gudbo qaybta hore ee cashirka dabcan waxaan imaanayaa qaybta ku xigta oo ah qaybta formatka ayaan imaanaya oo haddaan u baahnayay maxaa lalahay wax selka iigu qoran in aan format gareeyo haddaba haddii aan u baahanahay in aan badiyo maxaa la dhahayay selkan wax iigu qoran dabcan copyna waa isticmaali karaa okay waxaan kaloo isticmaali karaa wax loo yaqaano fill handle-kana waa isticmaali karaa oo markii selka uu noqdo 3 gees oo 4 gees markuu noqdo ayaan left click qabanayaa hoos ayaan u jiidayaa saa u jeedaan wuu badinayaa okay waan qabanayaa dhinacaas kale ayaan u jiidayaa dabcan labada direction oo leeyahay selka waa u jiida hoos iyo dhinaca midigta okay sel kasta haddii aan wax ku qoray saan cashirka ugu horeeyaan kusoo aragnay haddii aan fill handle-ka qabto aan hoos u jiido wuxuu fahmayaa excelka in selkaas waxa ku jira aan rabo inaan badiyo selkaas waxa ku jiri karo xalalahaye qoraal wuu ku jiri karaa amba nambar ayaa ku jiri karo si marka aan uga dhigo qoraalkan qoraal bold aan uga dhigo dabcan waa inaan select gareeyaa markaan select gareeyo waxaan imaanayaa home tabka ayaan imaanayaa qaybta font groupka ayaan imaanayaa amba kooxda fontiga ayaan imaanayaa waxaan imaanayaa waxa loo yaqaano bdaas oo ah bold amba control b ayaan isticmaali karaa oo keyboard shortcut ah saa ujeedaan wuxuu noqday qoraalkii qoraal oo maxaa lahay xoogaa ka yara maxaa la dhahay mugdisan amba ka yara maxaa la dhahay waaweyn qoraalkii hore meesha igu yaalay haddii aan u baahanahay inaan qoraalkan aan farjijiifa ka dhigo dabcan waxaan imaan karaa isla meeshii ayadaas ayaan taaban karaa amba control i ayaan taaban karaa qoraalkii wuxuu noqonayaa qoraal jijiifa ayuu noqonayaa oo sidii hore iska bedelayaa haddii aan u baahanahay qoraalkan inaan hoosta ka xariiqo dabcan waxaan imaanayaa font groupka kaas udaas oo hoosta ka xariiqan ayaan ku dhifanayaa amba waxaan isticmaalayaa control u oo ah hoosta ka xariiq qoraalkan meesha ku yaalo marka qaarkood waxaa laga yaabaa inaan u baahanahay farta inaan waaweyneeyo oo qoraalkan fartiisa aan waaweyneeyo haddaba waxaa imaanayaa isla font groupka ayaa imaanayaa meeshaan ku qoranyaa sizeka amba numberka ku qoranya ayaan fanaxdaas furayaa dabcan hadba numberka aan rabo ayaan geenayaa intaan raba ayaan geey karaa okay 14 ayaan ka dhigaynaa okay haddii aan u baahanahay inaan farta qoraalka naftigeeda aan wax ka bedelo waxaan imaanayaa qaybtan qoraalka fontiga groupka ayaa imaanayaa qaybta qoraalka ayaa imaanayaa meeshaas ayaan waxaan ku qorayaa times new roman ayaan ku qorayaa dabcan fartana waxayuu iska bedelayaa oo fartii ebel qorneed maana far kale ayaa noo soo baxayso haddii aan u baahanahay inaan u sameyno wax loo yaqaano color haddaan u baahanahay oo qoraalkan aan colorkiisa wax ka bedelno dabcan xarafka ayaan imaanaynaa xarafkan ayaan furaynaa dabcan kalarka aan rabno ayaan ka dhigaynaa haddii aan u baahanahay xarfaha meeshii ku qoranyihin backgroundka amba meesha dhulka hoose ee xarfaha ku qoranyihin haddaan rabna inaan wax ka bedelno dabcan waxaan imaanaynaa qaybtan backgroundka ayaan imaanaynaa laga kalareeyo kalarka backgroundka waxayaan ka bedelaynaa saa ujeedaan kalarka waxayaa iska bedelay haddaba waxaan rabnaa inaan barano alignmentiga aan rabnaa qaybteena ugu dambeysa cashirka inaan ku barano sida excelka uu fahmayo markii aan erey aan ku qorno iyo markii aan xarfaan ku qorno dabcan si laba qaab oo kala duwan ayuu excelka uu fahmayaa for example haddii aan qorno wax loo yaqaano erey haddaan qorno oo cantar haddaan qorno saa ujeedaan alignmentigiisa amba dhinaca uu ku dhegayo selka wuxuu noqonayaa dhinaca bidix ayuu noqonayaa haddii aan for example aan numbers aan qorno dabcan numberska wuxuu ku dhegayaa dhinaca midigta ayuu ku dhegayaa haddaba excelka sidaas ayuu u fahamsan yahay haddii qofka uu xarfo uu qoro iyo qofka haddii number uu qoro dabcan uu si kala duwan ayuu u fahmayaa
haddaba markii aad databaseyada qaar ku shaqeynaysid sida bishtriga amba dhagisiga amba quickbooka marka qaarkood waxaa laga yaabaa nambaro markii aad kasoo qaadid oo excelka aad keentid in uu u fahmo maxaa lalahay amba uu ugu programsan yahay databasekaasi in numberska uu ka dhigo markuu excelka uu keeno dhinacan midigta dhinacan bidixda uu kusoo dejiyo oo sida ereya camal oo ka dhigo oo hadhow markaa maagtid inaa xisaabaad aad samaysid sida isku dar ama isku dhifasho markaa u baahan tahay inaad ku samaysid oo excelka rabtid ina analysis ugu samaysid gudihiisa in waxaa laga yaabaa dhibaato badan aad kala kulantid oo waxay noqonayaan nambaro u keedsan sida xarfo camal ayay noqonayaan marka sidii looga soo nambaradaasi oo xarfaha camal databaseka uga soo baxay oo excelka u imaaday sida looga dhigi lahay numbers oo dib loogu soo celinayay maxaa la dhahay number ahaan looga dhigi lahay dabcan iyo wax lamida waan baran doonaa insha allahu tacala casharada soo socda ayaan ku fahmi doonaa laakiin hadda waxaa muhiima inaad fahamsan tahay markii oo maxaa lalahay excelka aan wax ku qorno amba aan data aan excelka kusoo shubano in aan fahamsannahay daatadaasi qaabka uu la dhaqmayo excelka haddii qaabka caadiga excelka uu u yaqaano maan qaab ka duwan aad ku aragtid inaad fahmi kartid meeshaas inay qalad ay ka jirto intaas markaa uga soo tagno alignmentiga dabcan alignmentiga naftigiisa annaga haddaan u baahannahay wax ayaan ka bedeli karnaa oo by nature waa saan waaye laakiin haddaan u baahannahay wax ayaan ka bedeli karnaa oo waxaan ka dhigi karnaa dabcan saa ujeedaan home group ayaan imaanaynaa alignment ayaan imaanaynaa okay dhinaca midigta ayaan kusoo deji karnaa anagoo isticmaaleyno dabcan alignment right-ka okay dhexda waan gei karnaa oo alignment centerka ah amba dhinaca midig oo ah marka hore meesha uu joogay sidoo kale nambaradana wax ayaan ka bedeli karnaa dhexda ayaan gei karnaa dhinaca bidix ayaan gei karnaa okay haddaa kan wax yar noo ballaariyo dabcan qaybtan ka sareysa qaybta hadda aan isticmaalayna dabcan nambarka waxaa lahaye taxiga naftigiisa dhexda ayaan gei karnaa kor ayaan gei karnaa also nambarka dhexda ayaan gei karnaa kor ayaan gei karnaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaan u baahannahay inaan ku sameyno wax loo yaqaano indent oo ah inaan dhinacan gudaha wax yar usoo sikino u baahannahay inaan meeshaas camal aan geyno dhexdana aanan geenin maxaa la dhahay geesna uusa taabanin dabcan waana kasoo celi karnaa okay raptex means waxaa waa markii aan selka qoraalo badan ku qorno for example selka markuu nagu yar yahay selka haddii aan soo yareeyo kasoo qaadbo selka waxaan ku qornay qoraalo fara badan ayaan ku qornay saa wegtan selka dabcan qoraaladani halkaan selka ma muuqana ilaa sel labaad ayuu aadaya haddii aan u baahanaa selkan keliya in aan ku hayno dabcan waxaan isticmaalaynaa rap tax ayaan isticmaalaynaa halkii sel ayuu ballaarinayaa si qoraalka oo aan selkaas aan ugu talagalnay uu u wada qaado halkaas sel dabcan marge and centerna waxaan ku arki doonaa casharada dambe insha allahu tacaala casharkeena maanta insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa hortiina waxaa kasoo muuqanaya dabcan contact informationka sida caadada ahayd haddii aad waxdooda amba su-aal amba cilmi ka gooni cilmigana haysid dabcan waa igu soo biri doontaa waxay igala soo xiriiri doontaa contact informationka hortaada kasoo muuqanayo dabcan intaan ku kulmi doonaa cashirkan kii ku xigay insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته